الجساسة mid ka mid ah xayawaanada ugu cabsida badan leh waxayna ilaalisaa masiixu dajaal waxay joogtaa jasiirad aan la garanayn meesha ay ku taalo waxayna ka mid tahay xayawaanada ugu cabsida badan leh ee calaamad dib maalmaha kamid ah markii rag saxaabada kamid ah ay badda ku safreen waxa ku dhufatay dabayl aad u daran dabadeedna waxay tageen jasiirad aan la garanayn cabaar kadib waxaa ka soo horbaxday xayawaan wada timaa aljasaasa xataa in ay kala garan waayeen wejigeega iyo madaxeega dabadeedna waxay ku tiri halkan waxa jooga nin ku xidhan silsilado ninkaas u taga markii ninkay u tageen waaba nin silsilado ku xidhan cabsi ay ka muuqato kadib cabsidii kadib su'aalo ayuu weydiiyey waxaa ka mid ahaa timirtii nakhli beesan su'aalo noocaasa kadib way ka jawaabeen taasi waxay ahaayeen saxaabadii Tamiim Daari ee arkay aljasaasa waana xayawaanka ugu hadalhaynta badan marka la joogo jasiiradda dajaal waxayna ka mid tahay calaamad as-saaca al-kubra labo masiixu dajaal waa nin soo bixi doona aakhiru zamaanka wuxuu ku xidhan yahay jasiirad adduunka ku taalo oo aan la garanayn meesha ay tahay cidda tagtaana aanay soo noqon ninkan masiixu dajaal waa nin uu nabigu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay hal il halkaas sujuuda dadka wuxuu ugu yiri doonaa inay raacaan wuxuu haystaa fitnooyin ay ka mid yihiin xoolo inuu roobka soo saari doono inuu labada garab ku wato biyo webi dab ka samaysan iyo webi biyo ka samaysan laakiin webiga biyaha ka samaysan waa dab ka dabka ka samaysanna waa biyo kuwaas ayuu dadka ku imtixaami doonaa dadkuna qaar badan way raaci doonaan fitnadiisa laakiin nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu nooga digay inaan iska ilaalino inagoo isticmaalayna akhrinta suuratul kahfi iyo inaan iimaanka iyo aan haysano fitnadiisu waa mid imtixaan aad u weyn oo soo mari doona adduunka waana mid uu dadka uu ku ikhdaacayo waxaa soo bixi doona akhir zamaanka nabiyullaahi ciisa wuxuuna dili doonaa ninkaas waxaa kaloo ka mid ah xayawaanada soo bixi doona addaaba xayawaan cabsi leh xayawaankan wuxuu soo bixi doonaa xilli dadku aanay warbahayn dadku ay shaqaysanayaan qafla ay ku jiraan dhulka ayaa dilaaci doona dabadeedna hal mar ayaa waxa soo bixi doona xayawaan yaab leh oo weligood dadku aanay arag xayawaankan dadku waxay ka sheekaysan doonaan adduunka meel kasta dadku waxay isla dhex mari doonaan xayawaan noocaas inuu soo baxay xayawaankaas kadib xayawaanka shaqadiisu waxay tahay addaaba hal shaqo waxay haysataa calaamad dadka inay ku calaamadayso kaafir iyo mu'min qofka halka sujuuda mararka qaarna waxa la sheegaa inay iftiin qofka muslimka ku calaamadinayso qofka gaalkaana mugdi ee wajigiisa ku calaamadinayso shaqadeeduna waa intaas waxayna ka mid tahay calaamadaha aakhiru zamaanka wayna soo bixi doontaa waxaa laga yaabaa in adiga aad kula kulanto maalmaha kamid ah waxay kugu qori doontaa ma mu'min mise waxaa kaloo ka mid ah ya'juuj wa ma'juuj quraanku wuxuu noo sheegay dadkan ya'juuj wa ma'juuj inay soo bixi doonaan aakhiru zamaanka maalmaha kamid ah soo bixitaankoogu wuxuu noqon doonaa murcib adduunka oo dhan bay mari doonaan wax allaala wixii ay arkaan ee ka soo horbaxana way baabi'in doonaan wuxuu doonaa ha ahaado dhagaxda biraha buuraha baabuurta wax allaala wixii ka soo horbaxa waxay awood u leeyihiin inay baabi'iyaan laana makhluuqan ma ahin makhluuq nalamida hadda iminka waxay ku xabisan yihiin meesha uu ku xabisay dil qarnayn sidkii uu dhisay ayay ilaa maanta ku xirxiran yihiin marka ay soo baxaan meel kasta cagta mari doonaan tusaale ahaan biyo bad bay soo mari doonaan qaar kamida way cabi doonaan kuwa kala ka soo daba mari doona waxay oran doonaan dhulkan weligiiba biyo ma soo mari yani meesha meel ay biyo ku jiri jirtay maba ahaba hadda kuwii ka horeeyeen baa soo cabi inna lillaah qoladan markaas iyaguna waxay kamid yihiin qolada aakhiru zamaanka soo bixi doona waxayna geysan doonaan fasaad aad u badan dadkana wixii ay ka soo horbaxa ama dad ha noqdo ama xayawaan ha noqdo ama guryo ha noqdo ama dhismayaal ha noqdaan dhammaan way baabi'in doonaan walciyaadu billaah ugu dambeyn ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa shirkooga ummadda dhaafin doona waxaa loo soo diri doonaa adduud